السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa asigoo sifaadka muuminiinta uu jecel yahay uu ka waramayo. wa cibaadu raxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna wa idaa qaadahum aljaahiluuna qaaluu salaama waaladiina yubiituuna lirabbihim sujadan waqiyaama. aayadahan Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sifaynayaa addoomaha raxmaanka. Sifada koowaad wuxuu ku tilmaamay waa kuwa dhulka socda si degan. Qofka socodkiisa wuxuu ka turjumaa qofka mutawaadica sibuu u socdaa, qofka isla weyn sibuu u socdaa. Qofka waxaa la tilmaamaa socodkiisa waxay ka turjumaysaa qofka akhlaaqdiisa. yacrif fii nafsih wuxuu garanayaa inuu makhluuq yahay, uu bani aadam yahay, oo bani aadamkii laga abuuray ciidda, kadibna laga abuuray nudfa ama minida yar. ma'aalkiisana inuu noqon doono ciid iyo dhulkaas buu og yahay. walidaalik laa yatakabbar, yacrif fii nafsih, haddana yacrif khaaliqah. wuxuu garanayaa rabbigii abuuray, cadamadiisa, weyninkiisa, dabadeedna wuu isku dhuldhigayaa. isu dhuldhigaasna wuxuu keenayaa inuu caabudo, inuu u sujuudo. Ilaahay marka wuxuu ku tilmaamayaa makhluuqana kuma kibraan, khaaliqa agtiisana kuma kibraan. labadaas sifo midnaba ma laha buu tilmaamayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala. walidaalik buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ammaanayaa aakhiro kuwa liibaanay inay yihiin. tilka addaaru alaakhira najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaad. taasi waa daarta aakhiro baa Ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay. daarta aakhiro waxaa loogu talagalay buu Ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay kuwa aan dhulka isku kibrinaynin, iskuna waaweynaynin, dhulkana aan fasaad la rabin. ama kuwa dhulka korkiisa ku kibra waa ahlu naarka. Ilaahay wuxuu leeyahay walaa tamshi fi lardi marxaa. Ilaahay wuxuu leeyahay war dhulkaas soconin adigoo kibirsan. qof kastoo isla weyn ama jirkaa dhismayo waa isla weyn yahay, ama xoogaa aqoon u bartay waa isla kibirsan yahay, ama hanti adduun u helay waa isla kibirsan yahay, ama xoogaa waa qurux batay waa isla kibirsan yahay. ayan kaanad, wax kastoo kalifayay inuu ku kibro oo sababa. waa sifada uu Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu ka leeyahay laa yadkhul aljannata man kaana fii qalbihi mithqaalu daratin min kibr. wuxuu leeyahay jannada ma galo qof qalbigiisa dhuracaso wax yar haba aatee yar oo qalbigiisa ku jirto kibir ma galo jannada. saxaabadii waa yaabeen, waxay dhaheen nin baa ku yiri qof wuxuu jecel yahay dharkiisa inay qurux badan yihiin, kabihiisana ay qurux badan yihiin. dabadeedna Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yiri ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal. wuxuu yiri Ilaahay waa qurux badan yahay, quruxdana waa jecel yahay. wuxuu dhahay nebiga kibirka aan sheegayo waa laba waxyaabood oo mutawaadica. kow, xaqa oo la diido waa kibir, iska kibrinayo xaqa. ka labaadna nebigu wuxuu yiri dadkoo la yeeso oo la iska weyneeyo